إيمانك شيء قرا لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبه قولل كيف فردوسيه جنو قورسن وليغيه قانغار هدي آتيهين قيرا لغو بيري وحييgeena qiimaha ku sugan qoorsiga ilaasha quraanka iyo sunnaha la isku larayaan la kala qaadin qaada dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura qulubtiina qiyaamaha xaqiisa dhawaan loo qulqulayaaye dad iyo qaadirkeeni wacna qaata amarkiisa alhamdulillah والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما سورة البقرة أيين كبل بين درس كان مع 10 كان وأنا آيات اللبيو كنتن قال الله تعالى إلهي باوحد ثم عفونا انت كذب وحنو إذن كرافنا عنكم إذنك بحياة السميسين من بعد ذلك انت دبق عابدين لعلكم تشكرون السيئة إلهي يقوم هاد نقضان وإذا آتينا مركي آنوسيني حصة هير بنو إسرائيل وموسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون سيأوها نمتان وحيابها إلهي يقول لقاها لو حكم ذا عفس كيس سبحانه وتعالى عفس كيس وعسي وين عسي وين وين يطوقفك قذبي يدن بقلاه inuu waxa ugu horeeyo ku dadaalaa waa inuu cid madaxda cafis weydiisto si uu dhulkiisa aayar u joogi karo gabashada uga baxo wax u dhaqan karo wax u dhisan karo ilaa wuxuu ka warwarsan yahay ciqaabe marka adoonka muuminka ayna haduu ilaahay godob iyo gaf ka galo waxa uu weyno in badan ka fikiraya waa dambigiisa iyo sidoo ilaahay uga dhaafi lahaa lama sahlana arintaas lidalik ba rasuulku sallallahu alayhi wasallam habeenka laylatul qadriga waxa u badan ilaahay weydiisanaya ummadana baray waa cafiska allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa deeqale dambigaasa gasheeno waa la idinka saamaxay la'allakum tashkuruun ma hadnaq baa la sugay in ilaahay ugu mahadnaqaan kol hadii la ogeysiiyay la cafiyay waxa kaloo ilaahay uu siiyay kitaabkii tawraad oo furqaanna isaga ay ku jirto furqaanku waxa weeye ahkaamta iyo cilmiga uu xambaarsan yahay baa wax cadeynayay oo xaq iyo baadilka kala saarayay xigmada loo siiyayna waa la'allakum tahtaduuna si ay ugu hanuunaan kutubta ilaahay wuxuu u siiyaa dadka si uu noqdo nidaamkii hagi lahaa ee hanuunin lahaa ee horumarka siin lahaa saasa ilaahay u siiyaa kitaabka halka yaala masaajidka yaala muslimku maanta dhunkanayaane waqtiga la dhintay la akhriyay la leeyahay waa la barakaysanayaa reer banu Israa'iil basaasay ku ahaayeen oo iyadoo ilaahay uu nabaduhu waraa dhuhurin dhabarkay ka tooreen haddana galkiisa dahab bay ka dhigeeno way xardheeno meelaha la saari jiray ee waan lagu dhaqmi jiruunuune ku dhaqalaantii baa waxay ahayd inaanay ku hanuunin oo xagga dambe ay ka tooreen hadda iyagoo cisaynayaba marka haba la sharfo haba la barakaysto haddaan lagu dhaqmin waa inaan lagu hanuunin oo la tuuray وإذ قال مركي ويري موسى نبي موسى مركي ويري نبي محمد وكورن لقومه قلدي سيبوا كيري يا قوم قلدي ذي وإنكم إذنكم ظلمتم أنفسكم نفتي نبا كحد قدبتين باتخاذكم العجل سميس الشرع سميستين دبي درادي فتوبوا وحاوصوا نقطان إلى بارئكم إلهيني إذن أبو ري فاقتلوا أنفسكم نفيهن اللاية وسيد الله توبت كينا يوي نفتين اللاية استلاء ذلكم خير لكم كاسائدين وناكسن عند بارئكم إلهين أكتيس إنها توبت كانتانا سيدا يسود الشان فتابع عليكم وإذن كتوبت أقبل مركي استشين إنه إلهي هو التواب الرحيم وأكيد أضومها توبت آذ وأقبله أن حريص بضنه arrintan ina arrin kala dhacday bay haydo markii nimankani ay gafka ku dhaceen ayaa waxa la yiri toobad keena ila waa gaalowdeen ilaahi inta soo nicmo idin siiyay deeqda faraha badan idin ku galada cadowgii idin ka badbaadiyay cilmigan samaawiga idin siiyay rasuulkan idin horkacaya idin hanuuninaya idin soo diray baa ka gaalowdeen marka toobad keena toobad keenayna waxay ahayd sida ilaahay uu sheegay subhanahu wa ta'ala in iyagu ay kawska siiyaan ama inta dambaabtay
ay dishay inta kale aan dambaabin oo kuwii dibiga caabuday ay laayaan kuwa aan waxba caabudin laakiin culimadu waxay u badan yihiin iyagoodani ama waxaa caabudeen ama ay caabudine inay isdilaan oo toobadda nooca bariga ahay kolka siday isu dileen quraanku ma cadaynin culimada qayb baa yiraahdo waa loo madoobeeyay dabeetana mindiyahoodii iyo warmahoodii iyo seefahoodii wada qaateen sidaas gawda la iskaga saaray qayb ka midina waxa ay leeyihiin iyagoo is arkayaba ay gawda iska saareen marka halka waxaynu ka aragnay sidoo Ilaahay noogu nicmeeyay subhanahu wa ta'ala ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا دعاء سائل هاي نقبل إله كوين نجاه الرئيس سداد علايس كأصارت إله ونجا علايس كه النصار بالوحى اللي نجلايه قان قاض أو حمانتك قان قاض أو كف كورور أو كل واقع وحتى هذا إله هو كوت وبط كان دبنا ونقن معي أنت عادتك اللي كري لايه كور وريجيه حمانتك قان قاض الله تيلا هذا استيلا كورم وأرناد وأذكوي مركب فضايدين تإلهي ونوف فضايدية سبحانه وتعالى ومدن هدي أيه تاسكمتها توبدين إن نقطة ميت سهلا أو عن إيه غلام دهين وها الكعكة وكله إلهي سجى إذن أبوره هلا يابين إنه إذن يدي استيل كيننا عن نقطة توبدين هلا يابينا إلى بارئكم عند بارئكم ولا وعل علينا الباري هو الخالق وكي يسوي إذن أبورتي كي يوم بأمر كان يدسي جودا مركي الله يسكساري أي نبي موسى إلهي بري سبحانه وتعالى يجنا أوهنتي صبح ذي برارتي تبتنا إلهي بكتشوتشي إنه هو التواب الرحيم وأنا كتوب ضقبلي عيبه دي بقى إلهي والله سبحانه وتعالى إذا بدر هذا إلهي كله رمنا يرهر بنو إسرائيل وقال كودي بقرآن صوبا دقيا وإذ وقت كورنا قارتي قلت ما تلاهدين يا موسى نبي موسى لن نؤمن لك كور رمين مين واحد نوشي جيسو حتى نرى الله جهرة شيرون إلهي وأرقنا يسقوا موقضة فأخذتكم الصاعقة وحيد قبطي قيلا إذن كل عضي وأنتم تنظرون إذنكم إيجا وحد عيا وظللنا عليكم الغمام وحنو إذن هريني ضرورتي ثم بعثناكم له وأنو إذن صارني من بعد موتكم انتي أعلمتين كدي لعلكم تشكرون السيئة إلها يقوم هذا قضاء دي بيجي كعذر دار تبا ليلو عابدين كل قيب كم إذا وأخيار تودي أو ضياش ودي الرنقل كباها ayaa soo raacay nabi Muuse calayhi salaam marka way maqleen wixii loo sheegay waxay yiraahdeen ilaahay tii inaanu aragnaabaan u baahanahay sidaan ku qarci karayna waa sidaa macna suul adab ma'a Allah wa ma'a rasuli adab dara ilaahay rasuushiisa lagu la dhaqmo nimanka caanka ku ah yahay calanka u sita arina Allah jahra ilaahayna tusi ana ragno hatta nara Allah jahra way halkana لن نؤمن لك لام كوحت الماما لن نؤمن بك معها لن نؤمن لك وي وآمن هدي باي كدب العدا وحيد هذا العلماء وحي نقطها رمين هدي لام كدب العنا والرمين هذي جوا كرميسن لكن إلهي بهذا لا يكا رميسن مينو يعني سجى رقم الكاسي كتاجنت عليه ده وحوي يعني إلهينا وحكوسا أمانة سورة دم بلوجيدي الذين يؤمنون بالغيب مؤمنين توحكوا أمان غيبك يدون إلهي أركين به رميسين سبحانه وتعالى يجينا أن التفسير بيتاجين عيب هذا يكمل داعي يكورماتك إلهي رسولك سكوري مادين إلهي نوحوا قال قذ قيلا كل عضي قيلا أنا حميل كرين ومسكح ذي وضنه كلا دلاعين وأي كل إنتين يدينكو إيجية سيد قاركود بوسي كله الرئيين كلا دمنا يكون كلا ساسي أركين غير دودي بي أركين قاركود بقار كلا يجوا يسموا قنايا ثم بعثناكم من بعد موتكم انت كدبوا لهي سون ولي marka saaciqad marna waxay noqotaa mid qofku la sooxo marna waxay noqotaa mid qofku ku dhinto halkan macnaheedu waxa weeye waa inay wada dhinteen kadibna way soo noolaadeen waa shanta meelood ee suuradani ay sheegayso
in ilaahay uu wax dhintay ifka ku soo nooleeyay halkan iyo qisadii baqarada soo socotay iyo saddexda qiso ee u dambeeya suuraddan aakhirkeeda shantaa meeloodba waxay daliil u yihiin inuu ilaahay subxaana wa tacaala qofka siduu u dilo una soo nooleeyo sidoo kale waxay caddaynayaan soo noqday hadduu ifka jiro oo qof soo noqday uu jiro ifka waxay mucjiso u tahay rususha ilaahay inagu soo noqday un baynu sheegnaayo dadku waxay yidhaahdaan hebel waa soo noqday dib uu soo noolaaday intuu qur-aanku sheegay ama nusuusta ay tilmaamaysaa qofka kastoo la soo nooleeyey wuxuu u yahay calaamad ama aan idhaahna ee mucjiso rususha ilaahay subxaana wa tacaala marka nebiganay mucjiso u ahayd nebi muuse وظللنا عليكم الغمام وحن يدين هرين ضرورتي وأنزلنا عليكم وحن يدين كسود جن المنة ملبكي والصلوة إيه لبكي شبر كيد دبنا كلوا عنا بالهيد من طيبات ما رزقناكم كلوا عنا من طيبات ما شيء كيس وناكسن رزقناكم أن يدين كو أرساقنا ونيدين سيني وما ظلمونا أنا قلنا نقومي حد كتبنا نقومي قردرانين بالهيد ولكن كانوا حي هذين أنفسهم يظلمون naftooda uun bay ku xadgudbeenoo ay ku gardaroodeen kana waa arrin kale oo waqtigii ay ku wareereen tiiha uu ku dhacay amar diidada markay wadeen waxa lagu riday waxa la yiraahdaa tiih way wareereen 40 sanatan yatihuna fil ard 40 sano wareerka ay ku jireen waxay yiraahdeen meeshii waxa loo baahan yahay nabi muuse cunno iyo cabid iyo har baa loo baahan yahay ummaddu waa rafaadsan ilaahay noo bari waxaanu cunno iyo waxaanu cabno iyo waxaanu harsanno ilaahay buu bariyay waa loo aqbalo intiiba waa la siiyeeyo daruuro ilaahay u hareeyay waxba ilaahay kuma adkaadan subxaana wa tacaala daruurahaasoo la dhaqdhaqaaqaya raashinkii iyo sharaabkiina waa malab iyo shimbiro duban oon xaawo iyo dabtoona ka doonayn cid karisana loo doonaynin iskaba diyaara oo bisil almanu wasalwa marka almanu waa shayga macaan sharaabka ah ee malabka lagu tilmaamay asalwana waa hilib shimbireed oo duban inkastoo almanna culimadu qaarkood ay ku fasiraan deequ ilaahay ku manaystay inay tahay dee cunno iyo cabidba caam yeeli karta sidoo tilmaamaya xadiidkii صحيح البخاري كسقنا النبي عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن الذي أنزل على موسى على معنى الحديث عشان لا يدعو الكمأة ومن كمت نبي موسى المن أول سيء أي كمأة كمت وما هي الكمأة وبهالشيء نورنج نت ما يلغض أنا وأفكار أنت أسمع واقع ولا جاب ذلك قاركودنا إني wax kale u yaqaanaan baalka yar ee likaha la yiraahdo marka uu saa u baxo ee xagaagii had iyo jeer baxa ee dhulka ka soo fuura inta sare orgacda markuu daadiyo qalalo xuukadiisa hoose soo hadha ayaa faaxda balaarata kadibna way bislaataa way udgoonta way macaanta sida saytuunka oo kale waa ka udgoon kale iyo carafka marka meel dheer bay ka soo urtaa baalka la yiraahdo dabangaalaha ee xoorka iyo waxaa sahad iyo jeer cuna nin baa wuxuu ku soo baxay iyada oo bislaatay oo aad u udgoon meel ka soo uriyo uu soo gaaray laakiin wuxuu arkay iyadoo xoorintu qoday xoorka waad garanaysaa baalkan dabacadaha ee yaryar ee meelaha marmara ayaa bar cunay markaa waanu gaajoonaya uu baahan yahay markaa wuxuu ilaahay baa talina timayruq bislaatay haday xoorkuna in lagu sunoobaabay dadku aaminsan yihiin marka ilaahay baa talin doono oo waad iska caafimaadaya baasha bislaatay ka tagin buura iska almuhim waxa sharaxa aan sheegay waxa fahmaya qofka mii uu soo maray likana garan maysid timayruqna garan maysid xookana garan maysid hadaad magaaladu dhex warwareegaysay kooras baadiyaha baad u baahanta nusuusta wax fara badan ayaa waxa lagu fahmi karaa inuu qofku baadiyaha wax ka yaqaan ama miyiga haddaanaad waxba ka aqoon wax badan baana daliilka fasiri karaynin hasha ninkeedaad odhanaysa xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaar nin baa fasiraya xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaar ilaa uu awrku ka galo irbadda daloolkeeda oo qur-aanku dee sheegay markaa wuxuu uhi jamalku waxa weeye hasha ninkeeda wey maxaa odhanayaa markaa kale wax kale u yidhaha awrkiibu soo saari laayay
waayo marka intaydaan odhanin hasha ninkeeda waxaa fiican inaad dhaqanka wax ka barataan iyo nusuustuna wax badan bay ayay maaragtay arrintaas ku xidhan tahay oo dee carabtii uu qur-aanku kusoo degayay ugu soo horreeyey wax badan baynu iska shabbahna asalwa waa shimbirka la ydhaha bay yidhaahdeen assumaani ayaa la yidhaahdaa waa shimbirahan cadcade had iyo jeer qaaradaha ka gudba ee kooxaha u wada socda ee badaha dulmara hilib macaan buu leeyahay walaxmi dayrin mima yashtahuun qur-aankuna wuxuu tilmaamay ahlujannaha waxyaabuhu ilaahay siinayo waxaa ka mid a hilibka shimbiraha ayaa ka mid a wuu ka jiricsan yahay waanu ka macaan yahay ilaa haddana dee waa kuwan yidhaahda hilibka cas waxaaba ka sii fiican kaa cadaka shimbiruhu wuu ka mid yahay marka waxyaabahaasaa ilaahay ugu deeqay kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum haddaa cunno weydiisateen oo cabid weydiisateen la idin diyaariyo ilaahay idin siiye marka waxaa ilaahay idin siiyey kiisa dayibkaa cuna marka mintuna tabciidiya maaha waa bayaaniya kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idin siinay ee dayibkaahe wanaagsan waa shaygaa idin xalaalka ah isticmaalo cuna haddii ay markaa gafeen oo aynu arki doonno inay horena u gafeen dibna u gafeenna ilaahay wuxuu kaga jawaabay oo uu yidhi markay dadku dulmi sameeyaan aniga imay dulmiyine naftooday dulmiyeen oo ilaahay xaqiisii haa may siinine way ku xadgudbeen cid kastoo ilaahay ka gaalooday subxaana wa tacaala laakiin dulmigu cidduu waxyeelayaa ilaahay maaha waa addoonka marka waa inaad ogaato tallaabadaad qaadaysa foosha xumi inay adiga ku dambarsanaysa kugu soo noqon doonto ciqaabteedu waid qulnaa waxaa xustaan markii aanu nidhi udkhuluu haadihi اlqarya magaaladan gala fakuluu minhaa waxaa wax ka cuntaan xayثu shiئtum meel kastoo doontaan raqadan aklan raqadan cunitaan waasaca wadkhuluu lbaaba sujadan albaabkana ka gala idinkoo sujuudsan waquuluu waxaad tidhaahdaan reer banu israa'iil oo marka magaaladaa gelaysaan xidatun su-aalunaa xida codsiga iyagu waa dembi dhaaf nakfir lakum waxaanu idinka dhaafi doonaa buu ilaahay yidhi khataayaakum gafafkiina oo badnaa wasanasiidu lmuxsiniin samafalayaashana wanaagooda iyo abaalkoodaan u kordhin doonaa buu ilahay yidhi waxay mutaysteen wax ka weyn baan siin doonaabaa ilahay wi arrinteena waxay ka sii turjumaysaa ka warramaysaa uun eedabdarrada reer banu israa'iil inay aada u badnayd magaaladan gala baa ilahay wi gelitaanku dhowr jeer buu ahaa midi waxa weeyaan in la yidhi xoreeya oo cadowga fadhiyo la dagaalama midina waa mar kale ay diyaar tahay ayaa ilaahay uu ku casuumay uu leeyahay dega magaaladani waa qudus baytulmuqadas ku yaallo ayaa culimmada islaamku ay u badan yihiin ardu shaam bay ku taallaayo dee deeq badan baa ilaahay uu dhigayoo midho iyo khudrad ayaa ku baddaa marka deeqdaa ilaahay uu idinku diyaariyeyna wax ka cuna oo fakuluu minhaa xayثu shiئtum meel kastoo doonaysaa barwaaqadeedu waa diyaar dhan waloo doontaanba waa xor baa utiina meelina xaaraan idinkaba aha magaaladaa qudus gala nicmadeeda daaqa beeraheeda intifaacsada barwaaqadeeda idinkaa leh saasuu ilaahay faray waxa markaas ilaahay uu xuseyn kale hadduu ilaahay u barwaaqeeyey oo dalna uu siiyey ilaan dadku waxay u baahan yihiin si ay diintooda u oogaan dadnimadooduna u hagaagto meel ay salka dhigaan ay dabada dhigaan bay u baahan yihiin marka cadowgiina ilaahay waa uga eriyo halkaasaa laydinku casuumeye bal dalkaana dega oo dabada dhiga deeqdii ilaahayna waa taasoo way badantay waxaa laydinka doonayaa in kooban wadkhuluu lbaaba sujada waquuluu xida qowl iyo ficil unbaa laydinka rabaa qowlku waxa weeyaan ilaahay dembi dhaaf weydiista dembigiina wuu badan yahay ficilkuna waxa weeye idinkoo sujuuda sujuuddaasi laba siyood bay noqon kartaa bay leeyihin culimmadu markay gelayaan magaalada haddii ay sujuudulxinaa inay sameeyaan ay madaxa foororiyaan iyaba waa sujuuda waa lagu fasiray ama waa markay galaan kadib inay sujuudaan shukran lilaah ilaahay bay u mahadnaqayaan subxaana wa tacaala taas waa mid sujuudda ilaahay baa iska lehe inaa ilaahay u hoggaansantiin ku muujiyo sujuuda inaa ilaahay u baahan tihiinna caddeeya oo dembigiinnii hore ka toobadkeenoo xidatun dhaha xida
dembi dhaaf baanu doonaynaa ilaahayna wuxuu u ballan qaaday inuu ka dhaafi doono dembiga naqfir lakum khataayaakum wasanaziidu lmuxsiniin dembi dhaaf baan idin siin abaalmarin siyaado ah oo wanaagsan iyo ajri badanna waan idin siin doonaa dadka samafalaha intaasaa ilaahay u ballan qaaday waxay yeeleen baynu arki doonaa insha allahu deriska dambe wallahu subxaanahu watacaala يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان